madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda shirkadda laga leeyahay dalkaasi Saudi Arabia oo caalami ah taasi oo ujeedadu tahay sidii ay maalgelin ugu sameyn lahayd ilaha dhaqaalaha ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha ayaa qasriga madaxtooyada wafdigaasi si diiran ugu soo dhaweeyay isla markaasina u sheegay in ay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar u yihiin sidii ay wax ula qabsan lahaayeen walaalahooda Carbeed iyo cid kasta oo daneynaysa ka faa'iideysiga ilaha dhaqaale ee dalkani uu leeyahay iyo kobcinta dhaqaalaha ee waddanka oo wadajir looga wada qayb qaato. haddaba guud ahaanba ujeedada socdaalka wafdigaasi waxaa faahfaahin ka bixiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee dalkan Soomaaliland mudane Bashiir Cabdi Xariir isagoo arrimahaasi tafaasiil ka bixinayana waxa uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wafdigan maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada. wafdigan waxa ay ka socdaan shirkad maalgashiga oo caalami ah oo mashaariicda waaweyn ee dawladda lagu maalgeliyo dalal fara badan maalgelin ku maalgelisay. waxa weeye waa shirkad brand Carbeed maalgashadayaal Carbeed baa shirkadda ayaa maalgeliyay qaybta Afrika ay qaabilsan yihiin maanta nimankan loo yimi maalgashiga u socday. waa shirkad dhaqaale badan runtii dalal badan oo adduunka gelisay oo xafiisyo badan ku leh dhammaan qaaradaha adduunka. aad iyo aad baa dalka aynu ugu soo dhaweynay. hadda waxay qaab badan keentay dekedda oo ay la ballaarin iyo dib u habeyn lagu sameeyo. waxay u socdaan mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin mashaariicda xoolaha, waxbarashada, caafimaadka, biyaha. waxay u socdaan mashaariic badan inay maalgeliyaan. arrintaasi waxay ka mid tahay barnaamijkii xukuumaddan ee madaxweynuhu ku hogaaminaya ahaa in dalka lagu soo jiido maalgashadayaal maalgeliya oo maalgelintaasi dalka ay u horseydo dhaqaale iyo in shaqo laga helo labadaba. waxa weeyaan aad iyo aad baanu usoo dhaweynay. waxay kula kulmeen wasaaradda qorsheynta, wasiiradii ganacsiga iyo arrimaha dibadda iyo wasaaradihii qaabilsanaa wax soo saarka qaabilsanaa xoolaha iyo beeraha. xubnahan wafdiga ka socda shirkadda laga leeyahay waddankaasi Saudi Arabia oo booqasho ku joogay dhawaanaha badalka ayaa soo gaarsiiyay dekedda magaalada Berbera qalab loogu talagalay ballaarinta iyo hagaajinta dekedda isla markaana daneynaya in ay maalgashi ku sameeyaan ilaha wax soo saar ee kheyraadka kala duwan ee dalka sida kalluumaysiga, beeraha, xoolaha, fursadaha kale ee dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo waxyaabaha soo raaca.